بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وبرنامج كيني دروس رمضانية ودرسي سدحات. ولا ليال وحن هوريك قصة هذا اللي qur-aanka kariimka ah iyo soo degistiisii ayaan kusoo qaadanay darsigeennii hore. Iminka waxaan ka hadli doonaa qur-aanka kariimka ah fadliga uu iska leeyahay akhrintiisa. In qur-aanka la akhriyo fadliga ay iska leedahay ayaan qaadan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Qur-aanka kariimka ah akhrintiisu waxay leedahay qiimo ayay iska leedahay. sidoo kale waxaa qiimo leh dadka qur-aanka xambaarsan Ilaahay qur-aanka uu baray iyana muxuu ahaa waa dad qiimo leh oo khayr badan sida xadiiskii Cuthmaan ibn Affan uu warinay ee nabigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu. dadka waxaa ugu khayr badan dadka qur-aanka barta dadkana sii bara kuwaas ugu khayr badan. xadiiska nabigu wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam ashrafu ummati hamalatu al-qur'an. ummadeyda waxaa ugu sharafta badan yani kuwa qur-aanka xambaarsan kuwaas ugu sharafta badan. marka waxaan fahmaynaa dadka ahlu qur-aanka xambaarsan inay yihiin dad qiimo leh oo sharaf iyo karaamo leh ayaan fahmaynaa. marka saa darteed Ilaahay rasuulka calayhi salaatu wasalaamna wuxuu in badan qur-aanka axaadiis fara badan iyuu kaga hadlay muxuu ahaa fadliga uu iska leeyahay iyo darajada qofka uu gaarayo. waxaa ka mid ah xadiis kale nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam man qara'a xarfan min kitaabillahi falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قفكي هذا قفكي آخر حرف كتابك لا هيك من حسنه أيها لا حسنة ذا طب الإجبار كذا لسينا والحسنة بعشر أمثالها. قفك الدوير هذا ألف لام ميم وهلا صدا أجر هلا حرف ولبا محوها هل درجة سؤالك طبعا marka 30 darajo helaya. marka waxa la rabaa in sida quraanka qiimaha leh ba wali bil rabaa inuu ku jirno waxa la rabaa in far badan akhrino oo aad iyo aad ugu dadaalo si gaar ah in xaafadaheena guriyeena inaan ku dadaalo aan qubuuro iyo xabaalo inaan xaafadaha laga dhigin. nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam la taj'alu buyutakum maqabira inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratu al-baqara. nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yani gurihiina xabaalaha ka dhigina maxaa yeelay haddaad muxuu ahaa qubuuro iyo laga dhigo xaafadaha muxuu ahaa taayada ma haboono. nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam shaydaanku wuu ka cararaa guryaha lagu akhriyo suuratul baqara. marka waa in qur-aanka muxuu ahaa lagu akhriyo xaafadaha sida ayaa wanaagsan. sidoo kale soonka iyo qur-aankaba way shafeecayaan maalinta aakhiro. xadiiska nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam as-siyaamu wal-qur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaamah. nabigu wuxuu leeyahay qur-aanka iyo muxuu ahaa soonka maalinta qiyaamaha addoonka ay u shafeecayaan. yaquulu siyaamu ay rabbi manactuhu aطacaama waasharaaba waashahwata binnahaari fashaficnii fiih. ramadaanku wuxuu leeyahay ilaahayo qofkan waxaan u diiday cunadiisii xalaasheed iyo shahwadiisii xaaskiisa xalaashaha iyo cabitaankiisa wax walba ayaan u diiday ee ilaahayo maanta wuxuu leeyahay u shafeeco jannada gee. qur-aanku wuxuu leeyahay sidoo kale wayaquulu lqur'aan ay rabbi manactuhu an-nawma bil-layli fashaficnii fiih. ilaahay wuxuu leeyahay anigana waxaan u diiday hurdadii ayaan u diiday habeenkii oo dhan qur-aankaas uu akhrinayo salaada u soo jeedaa ilaahay maanta wuxuu leeyahay jannadaada gee uu u shafeecaya. marka al-qur'aanu shaaficun mushafic waa qareen kuu doodaya maalinta aakhiro. marka waxaa muhiim maadaama bil ramadaan oo khayr badan lagu jiro in qur-aanka akhriskiisa la badiyo. ugu yaraan qofkii hadduu isku dayi karo 5 jeer iyo 6 jeer inuu dejiyo qur-aanka inuu dejiyo saasaa wanaagsan. sidoo kale dadka ehlu qur-aanka ahna waa dadka ilaahay ehelkiis. xadiis nabiga wuxuu alayhi salaam inna lillahi ahliina min an-nas qaaluu man hum ya rasuul allah. dadka waa ilaahay wuxuu leeyahay ehel marka asxaabtu yaa waa ilaahay ehelkiis. markaasuu nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yiri ahlul qur'aani ahlullahi wa khaasatu. dadka ehlu qur-aanka waa dadka ilaahay ehelkiisa oo gaarka u ah weeye. marka walaalahayga muslimiinta oo naftayda tiina waxaan u dardaarmayaa inaan qur-aanka kariimka akhrintiisu aynu badino oo aynu ka faa'iideysano. wajazaakumullahu khayr. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.